صوم 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 بشهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكينا عبد الله عرزون وحنا halkan nigu soo gudbin doonaa taariikhda dalka Djibouti waxay dhacdaa bariga qaaradda Afrika waxayna soo la wadaagtaa wadanka ay walaalaha yihiin ee Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Eritrea. badku dalkani ku fadhiyo waa 23200 kilomitir square ah. tirada dalkani waxa waddankan waxaa gumaystay Faransiiska waxayna xornimada ka qaateen 27 Juun 1977. caasimada dalkani waxaa lagu magacaabaa Djibouti. waddankan waxaa la aasaasay 20 May 1883. waddankan waxaa ku yaala saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay qaaradda Afrika. waddankan wuxuu ku jiraa wadamada ugu dhaqaalaha fiican ee qaaradda Afrika.